waxaan xusuustaa imanka qoladan gurmad relief baa qola la yidhahdaa jirta qoladaas waxay ururisaa lacag qaadhaana bay ururisaa qaadhaanka ay ururiyaan waxay ugu talagaleen inay riig ku soo iibiyaan reerku leeyahay asbaabaha ku kalifeena war idinka sheekeynaya intaa imanka la samaynayo biyo la samaynayo waxa laynoogu diidaa waxa weeyaan waxaynaan lahayn baa meesha maraya biyihii meelay qabteen ma jiro riig aynu leenumaynu biyo ku gaari karnaa waa fikirkaanu markaa isla qaadannay dadkeenna dibadaha ku maqan runtii dadaal fara badanna way wadaan meel fiican bay marinayaan lacagta hayaana imanka wax yar baa ka dhiman inay riig jarto kaa markaynu hellaabaynu meel kastaynu leenay daloolinayna haddii alla idhaa meel kastoonu biyo ku ognayn waanu daloolinayna hargeysa meel 10 kilomitir u jirtana biyaha hargeysa xaafadeennaynu ka waraabayna xaafadeena runtii aad baan idinku ducaynayaa aad baan idin hambalyaynayaa wasiiradeenna cusub iyo wasiiradii horena aad baan u hambalyaynayaa siyaasiyiinteenna kalena aad baan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay gacmaha isqabsada kulligiin idinkoo mid ah oon ku mucaaridiyo ku muxaafida eegin gacmaha isqabsada wax wada qabsada ka fakira sidii aad dadkiina iyo jiilkiina iyo noloshiina dambe iyo mustaqbalka carruurtiina wax uga bedeli lahaydeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.